dadka laga tirada badan yahay gacan la siiyo maxaa yeelay gaalada haddaad u tagto waxay ku leedahay qaxootiga dadka aadaa yaqaane beelaha lagu abtirsada waa tagaan abgaalaan ah qof qaxooti ku helaynin kaftanka waa taran marka kaftanka meeshaana gelaysaa guddoomiyaha markuu qabtay yaan soo wacay gudoomiye waa kaftameena waxaan maqlay mooshin baa la qabtay see wax yihiin markaasuu yidhi waa hor yaallaan mooshinka waxaan ku yidhi see u egyahay wuxuu yidhi bal aan kugu soo celiyo warqadihii saas u rogi waa igu soo celiyey wuxuu yidhi nambarkaas wey oo yaa ka dambeeya waxaa ka dambeeyay dad waalaha ah oo la yidhahda qabyo saaxiibkay madaxweynaha waa ila ballayay marka inaan hambalyo ku istaago haddana waxaan u malaynayaa ballanta dadka in la wada gaarsiiyey waxaan arkaya dad badan oo dardaaran dhiibaya haddee ma aqaan aniga dardaarankaas inuu kaliga i qabo doono iyo kaftankii cawada waxaan u malaynayaa madaxweyne sheekh shariif aa noo dhameeyey kaftan kale kama furno meesha aniga laftirkayga marmarka qaar waxaan iska jecelahay berigii marxuumkii cabdilaahi yuusuf axmed madaxweynuhu ku allah u naxariistee 3 bilood ayaa xamar lagaga tegey shariif xasan gudoomiye baarlamaan ahaa wuu naga maqnaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad baarlamaankan ahaa 3 bilood ayaa kusime madaxweyne isoo martay marka madaxweynihii 3 bilood la iska ka yiraahdo xataa waa iska rabi lahaa waxaan joognaa airportka ama geeyada diyaaradaha aadan cabdulla cusmaan aadan cabde maanta waxaa halkan ka dhoofaya madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya raalli hada aniga hadda jinfada aan ka dhashay waxa waaye sida aniga aan isu heesto laandheeraha koobaadaan ساسا إسوه يسمى لكن أضيع لما كرم هل أضيع ما قبله أضيع أنا نجا ملقي سكرنا بقول صدق شن عن صدق اللي حوجا نجي كرنا ما جري وإحنا لو سوقوا أميان قادنا أنا قاعد يبنا مرك maalin aan gabar reer galbeeda aan dawladdan xumaanteera aan u sharaxay aniga si oo dadkaas inaynan ugu taageerin anigoo ku dadaalay ayaan waxaan iri waa corruptionista dawladda meeshaas markaan waday joog tiri ma ahanay tiri ma ahan corruption lotteries waayay tiri وتوغي تريتو والله بالله تلا انا بي وتوغي تري إذن كما فهمتني corruption ka waxba la kala goostaahay tiri ha corruption ka ninkaana $100,000 ku diraaya ولا سو أردي تمنات كريبة تمنو كوريبة إلا خلطوا كقاضي سجاشنا أساق هذا مدنا وحبة أتكهلي ماذا ما أنت وحرم الرئيس مقدش دانا هنا نرانو وأمركي جدا بيسي صحيح وما نيجي وأمركي جو رئيسي ما أنت وحلنا وأمركي جدا بيسي وجدك لك عرته وأمركي جدا بيسي وعشرتنا لدعوه وأمركي جدا بيسي وقري أو تليو بوك هذا بوك هذا بوك بوك هذا بوك هذا بوك
in baarlamaanka Soomaaliyeed xogaal u noqdo amniga meesha marayo waa shabaab kana kamid hadda sii socdo taasa kamid la barto waa shabaab waa dad shabaab ku shaqeeyo waa dad message inay halka shabaab uga diraan qabaan halkan nasiib u leeyahay madaxweyne axmed madoobe uu naga daawanayo telefishinka oo aan rajaynayo inuu nala hadlaayo sababtoo ah waxaan ogahay in ciyaartoydu ay reer jubbaland ay kubadda u yaqaaniin sida axmed madoobe uu u yaqaano Soomaaliya caalamka shidada iyo nabadda iyo waxtarka iyo gobonimada iyo guusha inta mudug bay ka bilaabatay waxaana si daraa maalmaha reer mudug gadaal u socda waxa ugu daran hadda geel booliya maalin isku laayeen geel booliya markaan u jeedo walaalba waxay tidhaahdaa baadi buu ahay uu naga soo lumay qolada kala qaadata markii sare oo geel anu iga soo tegay baadi buu ahaa meeshii ahayd jinnadii adduunkaay ma nabadba joharad luuley ma nabadba waa idin soo jarmaadmee ma nabadba jacayl baan idiin wadnaaye ma nabadba xogta qaranka la siiyo kow xildhibaan dalkan amnigiisa laga hadlayo diireed marmarka qaarna fankan ku darsadaa markii hablahan oo quruxda badan oo kale aan arko وكلاده فيصل على ورابه وحتى سياسي وين سومالنا وكوس حقي يضمع كاغا جيري إن هوغامسو سياسة وكو داشي maanta waxaan go'aansaday inaan ku magacaabo ra'iisul wasaarahayga cusub ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya maxaa lagu jawaabay يا كذي بارنا واسعر ورين سوالنا هاي وانا كم يكون جرت أنا اللي صادري هاي تكست مسج ولا وحنا شفت لنا هنا وقت كان حاضر كا كريت لك كا إن هذيك اللي قاعد يهرس وسالي you are kidding me واسعر ورين سوالنا هاي أنا iyadoo halkaa taagan oo caalamku og yahay oon ku heshiisnahay oon ku kala faasaqsanahay waay anagu xil saaray waxa tagay gudoomiye xisbiga oo maanana weyn nagala mutashan telefoon aan lahayn waana waxa nagu cusub waana arrin u baahan in dib la iska arko artaas isagii cid la socotay toona ama kaag baan ugu waqti xataa maanaan ogeyn u baxay isagoo dukaan aad meel ku xiratay nin tuugo inta dariishada ka furta alaabti daldalaa wala ma arki jirina waagi hore bankiga markii la soo xiro ay waxay u yeeranayaan ninka qasnajiga ahaa madaxweynaha kuwa caalamay ee ra'iisul wasaaraha markaasay leeyihiin noo fur awamadow habeen sagada dhexe sagaalka saac markay marayso oo mugdigu badan yahay ay meesha furayaan markaasay qaadayaan ad waxaad la qaybsay waxaad arkay xildhibaan baa markii intaan kalfadhiga aan sugayn maxaa la dhahay inuu ka buuxsamo koorumka meesha xafiisku igu soo galay gudoomiye maanta waxaan rabaa inaan hadal sii jeediyo inta iga qaydi waa ku siinaa baa hadalka dalbo waayahay markii magacyada la qorqorayay isma qorin waa qoreen markii dambe gacanta ma taagay ninkii hebel markaa waa la yiri
hadda markaas soo baxay maxaad ii arbushaysaan waa la yidhi dad dhahays markaasuu ma islaanta igu soo qaylisay mashaakilku markay soo ana albaabkii la aan marayo waa igu soo qaylinayso marka waxa adalkii waa marka waxaa islaamaha maxaa gurigaaga adiga ma u talisido haa anaa u taliyo weyle laakiin waa iga adag tahay marka waxaa guriguri anaa u taliya warkaygaan u dambeeya markaas ma surtoodu marka waxaa islaanta markii aan dee walaa ma sidan weyle walaa marka ira noo shubdhe ay tiraahdaa markaas هي باي marka ana dadka laga tirada badan yahay gacan la siiyo maxaa yeelay gaalada haddaad u tagto waxay ku leedahay qaxootiga dadka aadaa yaqaan beelaha lagu abtirsada waa tagaan abgaalana qof qaxooti ku helay kaftanka waa tana marka kaftanka meeshaana gelaysaa guddoomiyaha markuu qabtay yaan soo wacay guddoomiya waa kaftameena waxaan maqlay mooshin baa la qabtay see waxay yihiin markaasuu yidhi waa hor yaallaan mooshinka waxaan ku yidhi see u egyahay wuxuu yidhi bal aan kugu soo celiyo warqadihii saas u rogi waa igu soo celiyey wuxuu yidhi nambarkaas weyn oo yaa ka dambeeya waxaa ka dambeeyay dad waalaha ah oo la yidhahda qabyo saaxiibkay madaxweynaha waa ila ballayey marka inaan hambalyo ku istaago haddana waxaan u malaynayaa ballanta dadka in la wada gaarsiiyey waxaan arkaya dad badan oo dardaaran dhiibaya haddee ma aqaan aniga dardaarankaas inuu kaliga i qabo doono iyo kaftankii cawada waxaan malaynayaa madaxweyne sheekh shariifa noo dhameeyey kaftan kale kama furno meesha aniga laftirkayga marmarka qaar waxaan iska jecelahay berigii marxuumkii cabdilaahi yuusuf axmed madaxweynuhu ku allah u naxariistee 3 bilood ayaa xamar lagaga tegey shariif xasana gudoomiye baarlamaan ahaa wuu naga maqnaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad baarlamaankan ahaa 3 bilood ayaa kusime madaxweyne isoo martay marka madaxweynihii 3 bilood la iska ka yiraahdo xataa waa iska rabi lahaa waxaan joognaa airportka ama geeyada diyaaradaha aadan cabdulla cusmaan aadan cabde maanta waxaa halkan ka dhoofaya madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya raalli hada aniga hadda jinfada aan ka dhashay waxa waaye sida aniga aan isu heesto laan dheeraha koobaadaan saasaan isu haysana laakiin oday yeela ma karno hal oda ma qabno oday aan anaga meel geysa karno 135 aan 36 uga dhigi karno ma jirin wixina loo soo go'aamiyaan qaadana anaga dhibanaa marka maalin aan gabar reer galbeeda aan dawladdan xumaanteera aan u sharaxaya aniga si oo dadkaas inaynan ugu taageerin anigoo ku dadaalaya ayaan waxaan idhi waa korrabshiniista dawladda meeshaas markaan waday joog tiri ma ahanay tiri ma ahan corruption lotteries waayay tiri waa tuugay tiri wallaahi billaahi tallahi inaan abin waa tuugay tiri idinka ma fahamsadeen corruptionka waxbaa la kala goostaahay tiri ha corruptionka ninkaana $100,000 ku diraaya waa la soo orday 10aad ka reebee 10 ku reeba ilaa khalad uu ku qaaday 9 asaa qaada midana waxba aad ka helay ma
maanta waxaa rabnaa reer muqdisho haddaana inaan idhaahno waa markii ugu dambaysay soo ayagu ma dhihi jiro waa markii ugu horraysay maanta waxaan leenahay waa markii ugu dambaysay oo jidadkeeda ka xirto waa markii ugu dambaysay oo cashuurteena la dhaco waa markii ugu dambaysay oo qoray uu taliyo bug haddana bug haddana bug bug haddana bug haddana bug in baarlamaanka Soomaaliyeed xogaal u noqdo amniga meesha marayo waa shabaab kana kamid hadda sii socdo taasa kamid la barto waa shabaab waa dad shabaab ku shaqeeyo waa dad message inay halka shabaab wadiraan rabaan hadduu caawa halkan nasiib u leeyahay madaxweyne axmed madoobe uu naga daawanayo telefishinka oo aan rajaynayo inuu nala hadlaayo sababtoo ah waxaan ogahay in ciyaartoydu ay reer jubbaland ay kubadda u yaqaaniin sida axmed madoobe uu u yaqaano Soomaaliya caalamka shidada iyo nabadda iyo waxtarka iyo gobonnimada iyo guusha inta mudug bay ka bilaabatay waxaana sii daraa maalmaha reer mudug gadaal u socda waxa ugu daran hadda geel booliyay maalinba isku hayaan geel booliya markaan u jeedo walaalba waxay tidhaahdaa baadi buu ahay uu naga soo lumay qolada kalaa qaadata markiisa hore oo geel anuu iga soo tegay baadi buu ahaa meeshii ahayd jinnadii adduunkaay ma nabadba joharad luuley ma nabadba waa idin soo jarmaadmee ma nabadba jacayl baan idiin wadnaaye ma nabadba xogta qaranka la siiyo kow xildhibaan dalkan amnigiisa laga hadlayo diineed marmarka qaarna fankan ku darsadaa markii hablahan oo quruxda badan oo kale aan arko oo ku yiraahdo Faysal Cali Waraabe waxa tahay siyaasi weyn Soomaaliland wad ku wisxoobkii iyo damci kaaga jiray inaad hogaamiso siyaasadda wad ku daashay maanta waxaan go'aansaday inaan ku magacaabo ra'iisul wasaarahayga cusub ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya maxaad ugu jawaabaysaa You are kidding about Allah. Yeah. Was Arureen Savarana. Hey. One can be good at telling you for the hey text message. Hey. Or waxaan ku talinahay in waqtigan xaadirka critical in adiga laga leeyahay soo saaray. You are kidding me. Was Arureen Savarana. Hey. Anigu iyadoo halkaa taagan oo caalamku og yahay oo ku heshiisnahay oo ku kala faasixnay waay anagu xil saaray waxa tagay gudoomiye xisbiga oo maanaan weyn nagala mutashan telefoon aan lahayn waana waxa lagu cusub waana arrin u baahan in dib loogu dib la iska arko artaas isagii cid la socotay toona ama kaagba noo waqti hatta maanaan weyn u baxay isagoo dukaan aad meel ku xiratay nin tuugo inta dariishada ka furta alaabti daldalaa wala ma arki jirina waayo bankiga markii la soo xiro ay waxay u yeeranayaan ninka qasnajiga ahaa madaxweynaha kuwa caalamka ra'iisul wasaaraha markaas ay leeyihiin noofur awamadu habeen saqada dhexe sagaalka saac markay marayso oo mugdigu badan yahay ay meesha furaan markaas ay qaadayaan ad waxaad la qaybsay waxaad arkay
xildhibaan baa markii intaan kalfadhiga aan sugayn maxaa la dhahay inuu ka buuxsamo koorumka meesha xafiisku igu soo galay gudoomiye maanta waxaan rabaa inaan hadal sii jeediyo inta igu qaydiy waa ku siinaa baa hadalka dalbo waayahay markii magacyada la qorqorayay isma qorin waa qoreen markii dambe gacanta ma taagay ninkii hebel markaa waa la yiri hadda markaa soo baxay maxaad ii arbushaysaa waa la yiri dadays markaas urmay islaanta igu soo qaylisay mashaakilku markay soo ana albaabki la aan marayo waa igu soo qaylinayso marka waxa hadalkii waa marka waxa islaamaha maxaa gurigaaga adiga ma u talisido ها أنا أتلي ولا لكن وايق أذكتها مركو حلو حكول قولي أنا أتليها وركي كان قدام بيا كاس مسرتو مركو حال إسلام مركي أنا هو الهم ما يصير ولا تهت المكان نوش بداية ترى هذا مركاسا هي باي مركي أنا dadka laga tirada badayha gacan la sii maxaa yeelay gaalada haddaad u tagto waxay ku leedahay qaxootiga dadka aadaa yaqaane beelaha lagu abtirsada waa tagaan abgaalaan ah qof qaxooti ku helayay kaftanka waa tara marka kaftanka meesha la gelaysaa gudoomiyaha markuu qabtay yaan soo wacay gudoomiyaha kaftameena waxaan maqlay mooshin baa la qabtay see wax yihiin markaasuu yiri waa hor yaallaan mooshinka waxaan ku yiri see u egyahay wuxuu yiri balaan kugu soo celiyo warqadihii saas u rogi waa igu soo celiyo wuxuu yiri nambarkaas weyn oo yaa ka dambeeya waxaa ka dambeeyay dad waalaha ah oo la yiraahdo qabyo saaxiibkay madaxweynaha waa ila ballayay marka inaan hambalyo ku istaago haddana waxaan u malaynayaa ballanta dadka in la wada gaarsiiyey waxaan arkaya dad badan oo dardaaran dhiibaya haddee ma aqaan aniga dardaarankaas inuu kaliga i qabo doono iyo kaftankii cawada waxaan malaynayaa madaxweyne sheekh shariifa noo dhameeyey kaftan kale kama furno meesha aniga laftirkayga marmarka qaar waxaan iska jecelahay berigii marxuumkii cabdilaahi yuusuf axmed madaxweynuhu ka allah u naxariistee 3 bilood ayaa xamar liigaga tegey shariif xasana gudoomiye baarlamaan ahaa wuu naga maqnaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad baarlamaankan ahaa 3 bilood ayaa kusime madaxweyne isoo martay marka madaxweynihii 3 bilood la iska ka yiraahdo xataa waa iska rabi lahaa waxaan joognaa airportka ama geeyada diyaaradaha aadan cabdulla cusmaan aadan cabde maanta waxaa halkan ka dhoofaya madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaaliya raalli hada aniga hadda jinfada aan ka dhashay waxaa waaye sida aniga aan isu heesto laandheeraha koobaadaan saasaan isu haysanaa laakiin oday yeela ma karan hal oda ma qabno oday aan anaga meel geysa karno 135 aan 36 uga dhigi karno ma jirin wixina loo soo go'aamiyaan qaadana annaga dhibanaa marka maalin aan gabar reer galbeeda aan dawladdan xumaanteera aan u sharaxay aniga si oo dadkaas inayna nagu taageerin anigoo ku dadaalay ayaan waxaan iri waa corruptionista dawladda meeshaas markaan waday joog tiri ma ahanay tiri ma ahan corruption lotteries waayay tiri waa tuugay tiri tuug والله بالله ترى انا نبي
waa tuugay tiri idinka ma fahamsadin corruptionka waxbaa la kala goostaahay tiri ha corruptionka ninkaana $100,000 kuu diraaya waa la soo ordee 10aad ka reebee 10 kuu reeba ilaa khalad uu ku qaaday 9 asaa qaada middan waxba aad ka helay ma maanta waxaan rabnaa reer muqdisho haddaana inaan idhaahno waa markii ugu dambaysay soo ayagu ma dhihi jiro waa markii ugu horraysay maanta waxaan leenahay waa markii ugu dambaysay oo jidadkeeda ka xirto waa markii ugu dambaysay oo cashuurteena la dhaco waa markii ugu dambaysay oo qoray uu taliyo bug haddana bug haddana bug bug haddana bug haddana bug in baarlamaanka Soomaaliyeed xogaal u noqdo amniga meesha marayo waa shabaab kana kamid hadda sii socdo taasa kamid la barto waa shabaab waa dad shabaab ku shaqeeyo waa dad message inay halka shabaab uga diraan qabaan caawa halkan nasiib u leeyahay madaxweyne axmed madoobe uu naga daawanayo telefishinka oo aan rajaynayo inuu nala hadlaayo sababtoo ah waxaan ogahay in ciyaartoydu ay reer jubbaland ay kubadda u yaqaaneen sida axmed madoobe uu u yaqaano Soomaaliya caalamka shidada iyo nabadda iyo waxtarka iyo gobonimada iyo guusha inta mudug bay ka bilaabatay waxaan nasiib daraa maalmaha reer mudug gadaal u socda waxa ugu daran hadda geel booliyay maalinba isku haya geel booliya markaan u jeedo olaalba waxay tidhaahdaa baadi buu ahay uu naga soo lumay qolada kala qaadata markii hore oo geel anigu iga soo tegay baadi buu ahaa meeshii ahayd jinnadii adduunkaay ma nabadba joharad luuley ma nabadba waa idin soo jarmaadmee ma nabadba jacayl baan idiin wadnaaye ma nabadba xogta qaranka la siiyo kow xildhibaan dalkan amnigiisa laga hadlay diiday marmarka qaarna fankan ku darsadaa markii hablahan oo quruxda badan oo kale aan arko oo ku yiraahdo Faysal Cali Waraabe waxa taa siyaasi weyn Soomaaliland wad ku wasiixoobkii iyo damci kaaga jiray inaad hogaamiso siyaasadda wad ku daashay maanta waxaan go'aansaday inaan ku magacaabo ra'iisul wasaarahayga cusub ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya maxaad u jawaabaysaa You are kidding about Allah. Yeah. Was Aroreen Savarana. Hey. One can be too cheap. I need to order. Hey. Text message. Hey. Or waxaan ku talinahay in waqtiga xaadirka critical in adiga laga leeyahay soo You are kidding me. Was Aroreen Savarana. Hey. Anigu iyadoo halkaa taagan oo caalamku og yahay oo ku heshiisnahay oo ku kala faasixnay waay anagu xil saaray waxa tagay gudoomiye xisbiga oo maanaan weyn nagala mutashan telefoon lahayn waana waxa nagu cusub waana arrin u baahan in dib la iska arko taas isaga cid la socotay toona ama kaagba nagu waqti hatta maanaan weyn u baxay isagoo dukaan aad meel ku xiratay nin tuugo inta dariishada ka furta alaabti daldalaa wala ma arki jirina waayo bankiga markii la soo xiro ay waxay u yeeranayaan
ninkii qasnajiga ahay madaxweyneyaa kuwa caalamiya ra'iisul wasaaraha markaasay leeyihiin noo fur cawo madow habeen saqda dhexe 9 saac markay marayso oo mugdigu badan yahay ay meesha furaayaan markaasay qaadayaan adu waxaad la qaybsay waxaad arkay xildhibaan baa markii intaan kalfadhiga aan sugayn maxaa la inuu ka buuxsamo koorumka meesha xafiisku igu soo galay gudoomiye maanta waxaan rabaa inaan hadal sii jeediyo inta igu qaydiy waa ku siinaa baa hadalka dalbo waayahay markii magacyada la qorqorayay isma qorin waa qoreen